muuqaalkan sida wada arkaysiinba fashilkii xalay nimcaan hillaac ku dhacay ayuu muuqaalkan ka turjumayaa. dadka marka kamarada saa loogu qabto 8 qof ma dhaafsana. fanaaniinta awal halka iyaguna showiyada ku dhigan jiray waxa ka soo qayb geli jiray 3,000 oo qof ilaa 5,000 oo qof. bal bahdilaada inta leegu isu geystay ayaga waxaan leenahay nimcaan hillaacow waxa tahay nin reer awdala nin reer Soomaaliland nin samaroona iyaga Soomaaliland iyaga cududa iyo tunkuba waa iyaga waxaan ku leeyahay war dalka ku soo noqo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawadayaal soo dhawaada aad iyo aad baan idiin salaamayaa meel kasta oo aad adduunka daafiisa ka joogtaan. waxa weeye xalay habeenkii xalay ahaa ceeb weyn ayaa dhacday. ilaahay ceebeyna ha asturo. nin lagu magacaabi jiray nimcaan hillaac oo oran jiray fanaan baan ahay oo intuu Hargeysa ku soo baxay waliba caasiyay. ninkii wuxuu noqday ninkaasi weelkii uu ku dhargay ee uu cuntada ku cunay ee uu ceeshka ku cunay haddana ku xaara. intaas waa intii hore. xalay maxaa dhacay? nimcaan hillaac maxaa ku dhacay? showgii uu Ingiriiska ku soo dhajistay gaar ahaan magaalada London maxaa ku dhacay? maxaa gaadhay? waxaan doonayaa daqiiqadaha soo socda inaan idinkula wadaago wixii xalay qabsaday fanaanka lagu magacaabo nimcaan hillaac. waxa weeye fanaankani horta waa isagu sidiisu waa cunsuri. wuxuu cunsuri ku yahay ummadda reer Soomaaliland. waxa weeye 6 milyan oo Soomaaliland ku nool haddii ay awda leedahay iyo haddii ay maroodi jeex leedahay iyo haddii ay sanaag leedahay 6 milyan wuxuu ka soo horjeeda aragtida ay iyagu doonayaan ee ah inay Soomaaliya kala soo noqdeen xornimadoodii ay markii hore ku darsadeen ama ay yiraahdeen dawladdaasi waxa weeye waxbaan la wadaaganaa maadaama anagoo dawladan waa u tagnay anagoo dawladan waan kala soo noqon. waxa uu leeyahay nimcaan hillaac Soomaaliland waa maamul ka tirsan Soomaaliya. haddaba intaas waa intii hore. maxaa dhacay xalay? arrinta dhacday xalay ee mucjisada ah nimcaan hillaac ayaa show soo dhajistay bisha 26keedii oo ku beeganayd xalay. sidaynu wada ognahay dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London iyo magaalooyinka kale ku dhowba waxa majority ka ah beesha Isaaq ee Soomaaliland ku nool ama beesha dhexe. horta fanaaniinta barta joogi jiray markay show soo dhajistaan showyadooda waxa ka qayb geli jiray 3,000 oo qof ilaa 4,000 oo qof ilaa 5,000 oo qof inta u dhaxaysa. haddaba xalay ceebta ku dhacday ninka lagu magacaabo nimcaan hillaac showgiisii waxa ka soo qayb galay 80 qof ilaa 110 ilaa 150 qof. taasna waa fashilka faneed ee uu isagu isu geystay. Soomaalidu waxay tiraahdaa alla ilahe halkan ku sugay Rooma ku helabeehed. waxa weeye shacabka reer Soomaaliland ee ku sugan cariga Ingiriiska waan hambalyeynaya saad xalay ula dhaqanteen ninka doonistiina ka soo horjeeda ninka Soomaaliland ka soo horjeeda waan hambalyeynaya. fashil buuna showgiisii ku dambeeyay. mid ka mid ah muuqaaladii xalay laga soo duubay bal waa kane hadan yar ileega wada jira mid ahaanshada Soomaaliyeed aad baan islaamaya jacaylkii qamiyobayo nasiib qadar baatiyo ima khulahaylantayda xasuusi. muuqaalkan sida wada arkaysiinba fashilkii xalay nimcaan hillaac ku dhacay ayuu muuqaalkan ka turjumayaa. dadka marka kamarada saa loogu qabto 8 qof ma dhaafsana. fanaaniinta awal halka iyaguna showiyada ku dhigan jiray waxa ka soo qayb geli jiray 3,000 oo qof ilaa 5,000 oo qof. bal bahdilaada inta leegu isu geystay ayaga waxaan leenahay nimcaan hillaacow waxa tahay nin reer awdala nin reer Soomaaliland nin samaroona iyaga Soomaaliland iyaga cududa iyo tunkuba waa iyaga waxaan ku leeyahay war dalka ku soo noqo oo dadkaaga dhinac ka raac.